kulankani ay soo qabanqaabisay Akademi Goboleedka Afka Soomaaliga oo kaashanaysa Golaha Abwaanada Soomaaliyeed, Bahda Qalinleyda iyo Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana loogu duceynayay Allaha u naxariistay horyaalkii hal abuurka iyo qalinmaalka Soomaaliyeed Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, waxayna Alle ugu bariyeen in Jannatu Firdawso uu ka waraabiyo. waxaana kulanka allabariga ah ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, Bahda Qalinleyda Soomaaliyeed oo sameeyay maasooyinka hadlaysay waxtarkii Allah u naxariistay Abwaan Hadraawi, abwaano iyo marti sharaf kale. Najmo Sheekh Maxamuud oo ku hadlaysay afka Akademiga Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Abwaan Cabdiduux Xirsi oo asna ku hadlayay afka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed ayaa waxay Alle ugu bariyeen in qabrigiisa oo Alle u waasiciyo. ma jiro qof Soomaaliya oo maanta intuu mikrofon qabsado ka hadli kara sooyaal ahaan iyo macna ahaan waxa uu ummadan ugu fadhiyay cid ka hadli karta runtii ma jirto. abwaankeena qiimaha badnaana Allah ayuu maanta martii u yahay Ilaahay Rabbi Subhanahu wa Ta'ala ha u naxariisto. waxaan leeyahay marka geesiga Allah u naxariisto, Ilaahay ha ku fakiyo muxuu ahaa aqoontiisa diinta iyo iimaankiisa faraha badnaa ee ka buuxay. Ilaahay ha ku fakiyo jacaylka uu u hayay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo isku xirnaanteeda. Ilaahay ha ku fakiyo sidoo u jeclaa taabinta danyarta. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa waxa uu sheegay in maanta Allaha u naxmadee Abwaan Hadraawi nooga baahan yahay in aan u duceyno naxariistii jannada Alle oo siiyo. Hadraawi waa hooyday oo waa inaga qarsoomay, laakiin taariikhdiisa ma hooyan. buug baa laga qoray, waxay ku kaydsan tahay warbaahinta casriga ah, meel kasta laga heli karaa, meel kasta ku jirtaa, waana suugaan anfacaysa oo waxa dhacay iyo wax soo socdaba ka tarjumaysa. Ilaahay naxariistii janno ha siiyo. Xildhibaan Zainab Caamir iyo Senator Cismaan Abuukar Dube ayaa Alle waxay ugu bariyeen in Allah u naxariistay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo qabrigiisa Alle u nuuriyo, marti la jecel yahana Alle ka dhigo. asigoona Senator Cismaan Abuukar Dube oo ka sheekeeyay sida ay saaxiibka dhow u ahaayeen. aniga waxa waaye hadal badan ma lihi ee kastoo gadaal ka imid aan u duceynaya. waxaan leeyahay naftaadi waa weyday, Ilaahay kii nabigiisa ku ag jooga oo noqdo Allah ka dhigo, Ilaahay xabaashiisa ha u waasiciyo, Ilaahay kitaabkiisa gacanta midigta Allah ka geliyo. aabu aha Soomaalo aabu aha waana qalbiyadeena uu ku noolaan doona. Ilaahay ha naxariisto, Allahiisa wala kulmi doona. wuxuu salaad buu taagnaan jiray, cibaado u taagnaan jiray, Allah ka cabsi buu taagnaan jiray. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu amalkiisii ka sawaabsiiyo, jannooyinka firdawsana ku abaal mariyo, inagana inooga daba naxariisto, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna u samariyay iimaan ka siiyo. aad iyo aad baa mahadsantihiin, waana ku mahadsantihiin qabanqaabadiina. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya, Muqdisho.